بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دروستeenii fahamka islaamka ayaan halka kasii wadnaa. Waxaanu soo dhameynay qaybtii arkaanul iimaan as-sita. Iminkana waxaynu gelinaa qaybtii arkaanul islaam. Arkaanul islaam waa shan: shahaadatu an laa ilaaha illa allah wa anna muhammadan rasuulullah, wa iqaamu salaah, wa itaa'u zakaah, wa sawmu ramadaan, wa xajjul beyt liman istadaaca ilayhi sabiila. Shantaa arkaan islaamka waxa weeyaan waa shan camali ah. marka caqiidada laga yimaado iimaanka, marka waxa weeyaan shahaadada ugu horeysa oo ah ku dhawaaqidii, declaration of shahada, oo noqonaysa that there is no God except Allah and Muhammad is the messenger of Allah. shahaadatu an laa ilaha illa qiro, an laa ilaha illa huwa jirin xaq lagu caabudaa illa Allah, Allah mooye, wa anna Muhammadan nabi Muhammadna rasuulullah, rasuulka ilaahay inuu yahay. intaa qofku inuu ku dhawaaqa la doonayo. dhawaaqaas marka waxa weeye marka hore waxa ka horeysa inuu rumaysan yahay, oo marka hore qalbiga laga rumeeyo, carabkana lagaga dhawaaqo, jawaarixda iyo xubnahana laga sameeyo qowl iyo camal iyo tasdiiq. saddexaas weeyaan islaamnimadu bay ku buuxsamaysaa. marka waxa weeye shahaadadana waa ku dhawaaqidii, waana camali. laakiin marka islaamka arkaan islaam si guud looga warramayo arkaan iimaan waxa weeyaan halkan lasoo dhexgeliyo. waxaynu hore usoo sheegnay shahaadada inuu ku dhex jiro iimaankii, rumayntii ku dhex oo iimaankii halkan ku dhex jiro. waxa laale wixii Allah subxaanahu wa tacaala sheegay iyo wixii nabigiisu sheegay, intaaba in la rumeeyo baa la socota. waaya maanta markaa shahaadadaas umaynu sharaxaynaa. kelimatu tawxiid baa leehdaa, laa ilaaha illa allah ayaa kelimatu tawxiid leehdaa. tawxiid marka waxa weeyaan keliyeyn weeye. atawxiid allah subxaana wa tacaala ayaa la keliyeynayaa. waxaa kaloo loo keliyeynayaa wax kasta oo allah subxaana wa tacaala uu gaar u leeyahay. waxaa kasoo horjeeda ashirk, waa ilahay wax laga wadaajiyo. marka waxa weeyaan tawxiidku islaamka wuxuu ugu jiraa meel muhiima. inta badan waxaa dhacda qofka isagoo muslina in haddana tawxiidkii uu shirkiyaad sameeyo, waxyaaba shirkiyaad ah ama ha yaryaraadeen, shirkul asqar ama shirkul akbar ha noqdo. marka waxa weeyaan taa in aada loogu dadaalo weeyaan. oo waxa weeyaan cibaadaadkii iyo waxyaabihii ma garanaysaa wax kastoo cibaado ah, sidoo kale maxay ahaataa daacaadkii kale, xukunkii, wax kastoo alle khaas u leeyahay in aan cidna lala wadaajin. waxaa dhacda dumarku waa kuwan sitaadka tunta. islaantii hooyaday, allah yarxam, allah u naxariistay, waalidiinteenbe dhammaantooda ayaa dhawaan bay dhimatay xilligii corona. ayaa qolyahan sitaadka tunta bay ahayd, tuma oo weliba amiir bay u ahayd, dabeetana madax bay ahayd. carruuraheeda markaa carruur badan baa la hadloo yidhi, hooya iska daa waxaan, shirkiyaad baa ku jira, waxbaa ku jira, dunuun badan baa ku jirta. dabeedna waxay ohan jirtay, warba khayrkaa noo diidaysaa. waana horteedi xilliyadii hore diinta waxa weya rabadaanta iyo meela ka akhriyi jireen, maqaaxyaha iyo meelaha magaalooyinka, muxaadaraadka lama heli jirin. dumarkuna meelahaas isku tegi jireenoo inkastoo axadaysi iyo kelmado xuna khatara ku jiraan, waa isleeyahay bakrisada laga keenay, mise waxa laga keenay shiicada. haddana meesha qura ay wacdiga ka qaadan jireen, maxay ahaatay wax isugu sheegi jireen ayay ahayd. dabeedna waxay odhan jirtay, warba khayrkaa noo diidaysaa. maalinta dambe waxaan ku yidhi, anaa ku la hadloo yidhi, bal iska wata khayrkiina waxaad samaysaan. waa idinkana yidhaahdaa, soo ma tirahdaan ilaahan baahanee loo baahan yahayo, aduun baa lagu baryayaa boqorka markasta wada, ilaahan baahanee loo baahan yahayo, aduun baa lagu baryayaa boqorka weyn. haabay tidhi, waayahe kelmadda aduun baa lagu baryayaa waxa weeyaan waa adaatu xasri ba leedaha, waa iyaaka oo kale, mafcuul muqadam. mafcuulka marka lasoo hormariyo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin laleeyahay, aduun. marka mafcuul muqadam waxaa looga jeeda waa la adkeynaya, waa tawkiid. marka aduun baa lagu baryaya, yani cid kale la bari maayo. waaya marka iska ilaaliyaan hadda faadimo binta rasuul iyo maxaa ahaatay cabdulqaadir jaylaani iyo hebel kale iyo
فلان iyo maxay ahaatay muuse maxay ahaatay sheeko aan nabi muuse ka soo guuriyeen iyaduna jirta iyo meel cabdiqaadir waxay tahay jiraan badu kala jeexaya jiraan muuse wax noocaas baa ku jira waxaasoo dhan markaa iska daaya baan ku yidhi oo iska ilaaliya aduun wadiga aduun baa lagu baryaada ilaahan baahana loo baahan yahay allahu samad weeye qul huwa allah ahad allahu samad السمد waxa weeye mubaahadaha loo baahan yahay ee xawaajtan loo qastiyo way halka marka way inta yar ee kooban ilaahan baahana loo baahan yahay aduun baa lagu barayaa boqorka weyn waxa weeyaan waa kelmad aad u ballaaran oo tawxiid ah marka kelmadda inaan la maxay ahaatay wax la soo dhaxgelin oo hadhow laga daba iman intaas ma sheegay saantooyada waa iska aamusta way yara fikirtay qof weyn weeyaano waaye waa iskaga tegayo maalintii dastaadkii la keenay bay tiri war kala shaandheeya layada meesha xukuntay wixii ilaahay baryadiisa ka soo horjeeda inaga daaya qaar baa dumar ka xanaaqay iskaga tagay qaarna inada waa ku soo hadhay halkaas waa la kala safeeyay gabigiisiiba marka waxaan tawxiidku waxa weeyaan aad buu maxaa tahay loogu soo celiyaa quraanka iyo ahadiista iyo in shirkiyaadka la iska ilaaliyo oo wixii Allah subhanahu wa ta'ala gaar u leeyahay aan cidna la wadaajin waxa sidoo kale jirta sifaadka iyo asmaada rabbi sallallahu alayhi subhanahu wa ta'ala iyadana waxa weeyaan in tawxiidku ku jirta waa in loo kala yeero magacyada ilaahay laysa kamithlihi shay ilaahay wax la mid ma jiraan magacyadiisana magacyo waxa jira ama sifaad waxa jira ar-rahiim oo kale oo de makhluuqaadku leeyihiin isaguna leeyahay laakiin rahiimka iyo samiic iyo basiir iyo kuwaas maqal ha noqoto ama ha noqoto arag ha noqoto kuwaasi waxa weeyaan makhluuq leeyihiin Allah subhanahu wa ta'ala de isku sifeeyay samiiciisa iyo basiirka xalaha aragtiisa iyo maqalkiisu samcigiisu la mid ma ku makhluuqa marnaba raxmadda rabbi iyo raxmadda makhluuqaad isku mid ma marka yaan la isku khadoono soo sidaan la soo ekaysin marnaba wax Allah subhanahu wa ta'ala sifooyinkiisa kamida asmaadiisa kamida makhluuq ma qaadan karo sidaas in loo fahmo weeyaan halkaas baynu u deeynaa hana sii barto oo waxa weeyaan inta inagu waxaynu sameeynaa ishaarad signal baynu sameeynaa aynu sheegnaa casharada iyaga kooban qofku waa inuu sii bartaa oo kelimatu laa ilaaha illa allah shuruudaheeda iyo waxyaabaha burinaya iyo qofku islaamka kaga bixi karaya waxaas oo dhan waxa weeyaan waa casharade maxay ahaatay ballaaran iyo macno ballaaran marka in la sii badsado oo meelahaas la sii galo oo inta horta gaar loo sii barto aynu maanta casharka aan dhignay ayaa aad u muhiima waxaan kaloo isku burinaynaa channelka sii share garay iyo duruusta ku jirta duruus higaada ku jirta oo ugu muhiimsana oo qofku 10 maalmood 7 maalmood oo higaad iyo quraan ku baranaya dad badan ka aflaxeen dad 1 milyan ku dhow ayaa fiiriye marka la eego darsigiisa koobaad CD-yana waa lagu duubtaa iyo memory-yana waa lagu duubtaa marka way meesha Soomaaliya isugu timi weeye channelka Aadam Islamic channel baa leeyahay sii share gareeya subscribe ka qaasi duruusta kala heshaan mid kale WhatsApp-ka lambarada nagala soo xiriira waxaan idin soo dirinaa buugagtan higaada iyo waxa soo bilaash free PDF halka nagala soo xiriira والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.